Professor Ahmed Muumin Warfaa ayaa wuxuu soo gaaray magaalada London waxaana gegida weyn ee dayuuradaha Heathrow Airport ugu hortagay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada London. Professor Warfaa oo aad u riyaaqsan ayaa wuxuu gacan qaaday qaar ka mid ah dadkii soo dhaweynayay iyadoo markii dambena loo soo kaxeeyay halkii ay munaasabadu ka socotay. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid London iyo nawaaxigeeda ayaa waxa lagu soo dhaweynayay Professor Ahmed Muumin Warfaa oo ka mid ah musharaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamay xilka madaxweynenimo. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada oo ka hadlay halkaas ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waa Ahmed Muumin Warfaa wuxuu dhashay 12 bishii Abriil 1948 wuxuu ku dhashay magaalada Buulaburti ee gobolka Hiiraan 1900 kulli dabcan waxbarashadii hoose dhex ilaa sare halkaas uu ku soo dhameystay ilaa xamar 1977 iyo 25 wuxuu ka qaatay shahaadada bachelorka ee cilmiga maaragtay beeraha kulliyadii jaamacadii maaragtay ummadda Soomaaliyeed 1977 ilaa 1980 wuxuu ka qaatay shahaadada masterate-ka jaamacadda ku taalo Florence oo Italy 1983 ilaa 1989 wuxuu qaatay shahaadada doctorate-ka ee PhD-ga oo ka qaatay dalka Sweden kadib burburka dalka markuu dhacay 1998 ilaa ay hadda aynu joognana wuxuu ka shaqeeyaa oo bara jaamacadeed ka yahay jaamacadda Utah ee dalka Mareykanka ee Salt Lake University. taariikhda hadda laga sheekeynayay ku saabsanayd Professor Warfaa si fiican ayaad u fahamteen. haddaba waxaan rajaynaynaa Professor Warfaa inuu ku guuleysto Ilaahay idinkiis tartankan uu ku jiro inuu Ilaahay ku guuleysiyo maxaa yeelay waxaan adeegsanaynaa maskaxdiyaan adeegsanaynaa aqoonteennaan adeegsanaynaa. ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan u maleynayaa waxaa u soo socda barwaaqo iyo rayn sababta oo ah in ay hartay jahligii oo harayo oo uu soo ifbaxayo mutacallimiintii iyo aqoon-yahanadii inay soo isbaxayaan oo ay soo socdaan ayaa u muuqataa. anna waxaan leeyahay maamul iyo qurux waan soo gudbay waxaan rajaynaa walaalkay Warfaa inaan garabkiisa waa iga dardaaran waxaan ku dardaarmaa haddaba Professor Warfaa aqoontaadii waa la sheegay waayo aragnimadaada waa la sheegay wiil wanaagsan oo humble inaad tahay waa wada ognahay wixii aan kugu dooranayna ama aan dadweynaha Soomaali aan kala hortagayno waa inaad kartideeda yeelataa ilaahay ka fogaa wixii cadaalad darre ah dunidaydukeedna adigay ku daba socdaan sultaan baataayo sadrigiisu saafiya. mudane Professor Warfaa waxaa kaloo aan rabaa inaan talo ahaan u sheego markuu dalka tago oo ka taga magaalada Muqdisho inuu marka ugu horeyso Soomaalida musharaxiinta ah oo gobolka uu ka dhashay ka soo jeedo ama Soomaalida kale musharaxiintooda mutacallimiinta ah inuu shiraan oo aqoon isweydaarsadaan inuu taa ka digtoonaado oo markuu hadda tagaayo xildhibaanka ninka galaayo waa inuu wax ka sharxaa. ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay sida la wada sheegay aqoontana waxa wata Professor Warfaa maxaa yeelay qofku hadduu wax u qabanayo oo san aqoon waxa weeye waa ul mugdi lagu tuuray. Professor Warfaa wuxuu ka soo jeedaa Hiiraan gobolka Hiiraan taariikhda siyaasadeed ee Afrika wuxuu dhigay record waxa gobolka ka yimid ninkii u horeeyay ee siyaasi ah ee Soomaali ah ee 61 intuu madaxweynenimo u tartamay laga adkaada ee aqbalay qaaradda Afrika
sheekh cali jimcaale baraale. haddii ummadda soomaaliyeed maanta ay fahmeen xaqiiqdii oo maanta bannaanka ay ugu soo baxayaan barofesoradii iyo mutacalimiintii inay doortaan runtii waa faa'iido. walaal sidee bay kula muuqataa xafladda maanta siday u dhacday iyo musharaxnimada profesorka? waa maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo duulo Scandinavianka waddanka Finland dhowr saacadood kadibna aan ku noqonaa waddankayga marka maasha allah si wanaagsan ay u dhacday. aad baad ugu mahadsantahay walaal adigana sidee bay kula muuqataa? aniga waxaan rabaa waxaan ka mid ahaa guddiga qabanqaabada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan waxgaradkii iyo jaaliyadii Soomaaliyeed ee UK xafladda nagala soo qayb galay aadan ugu mahad celinaa waana ku mahadsan yihiin profesorkan waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay ku guuleeyo doorashada madaxweynaha xilliga dhow la qaban doono hadduu ilaahay yiraahdo. wallaahi xalfadda caawa halkan ka dhacday si aad u qurux badan ee noogu dhacday profesorkana aad iyo aad bay dad jaaliyadda Soomaaliyeed UK ugu soo dhaweeyeen wayna taageersan yihiin qudbooyinkiisii iyo mabduucyada nagala hadlay oo tale tusaalada naga siiyay wax Soomaaliyeed ay ku riyaaqday noqday. nabaddu waa wax muhiim ah oo maxaa nabi ibraahim ku qasbay inuu alla ka baryo cunto isagoon baryin oon caruur barin baladan aaminan muxuu uga baryo nabad haddaad wayso malaayiinta aad haysato waxay taraan male nabad haddaad waysane aqoonta aad leedahay waxay taray male nabad haddaad waysane quruxda iyo heybadda idinka muuqanaysa ma jirayso nabad haddaad waysane meel xataa waxaad cunaysa aad ku cunto ma laha. ugu dambeyntii ayaa waxaa ii suurto gashay inaan la kulmo musharaxa profesor axmed muumin warfaa. profesor waxaad nooga warantaa maadaama ay jiraan dad fara badan oo u tartamaya xilkan madaxweynenimo maxaad adigu uga duwanaan doontaa? bismillahi raxmaani raxiim horta waa ku mahadsantahay su-aashu waa su-aal wanaagsan waxaan anugu cidaan ka duwanaana ma laha laakiin waxaan afka ka sheegaan rabaa inaan ficil u bedelo wax kale ma laha waxa dadkoona sheegaan waxyaabaha badan oo dadku sheegaan waa waxyaabo qurux badan laakiin ficil loo baahan yahay qodobka kale aniga ma rabo inaan dadka Soomaaliyeed inta fiiriyo waxay rabaan aan u sheego laakiin waxaan rabaa inaan u sheego waxaan isleeyahay waad qaban kartaa. profesor axmed muumin warfaa wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed isla markaana wuxuu u taagan yahay xilka madaxweynenimada doorashada dhawaan lagu wada inay Soomaaliya ka dhacdo. Cabdikariin Cali, Somali Channel, London.